dhammaantiin saaxiibayaal aad baa idin salaamay taladan waxay ku socotaa qof kastoo raba inuu bilaabo ganacsiga ha noqdo mid online ama mid offline ha noqdo dabcan experience-gayga 5 sano u dambeeyay baan rabaa in halkan kugula shargalayo sidoo kale waxyaalo aan ka loxjiitay ama aan ka faa'iideystay waxa way article badan aan akhriyay shirar kala duwan aan ka qayb galay podcast badan aan dhageystay sidoo kale book badan akhriyay baan rabaa si khulaasa ah in halkan aan kugula shargalayo haddii aad rabto inaad manage gareysid business guuleysto waxyaalaha laga rabo inaad iska ilaalisid ama waxyaalaha laga rabo inaad ku dadaashid baan rabaa saaxiib muuqaalka inaan kugula shargalayo dabcan waxaan maamulaa ama aan ahay founderka Geela Bashir Academy hortii waxa dhalinyaro badan ay ku xiran yihiin shirkadda website design ah ilaa waxa way 6 dhalinyaro oo igala shaqeeya saaxiibayaal businesskayga marka waxaan rabaa talooyin badan aan dadka la gaari waayay ama inta koorsooyinka qaata aan la marab la shargalayo inaan si guud adinkana saaxiibayaal aan idin kula shargalayo waayo dad badan markasta commentiga ee su'aalaha noocan iga soo wadiyo marka waxaan rabaa inaan kula shargalayo 5 qodob oo laga rabo qofka raba inuu sameeyo business guuleysto baara muuqaalkan saaxiib inaan kula shargalayo waxaan rabaa inaan si degan aad u dhageystid oo aad saaxiibayaal ka faa'iideysid dabcan waxaan kula shargalinay waa proof system weeye waa from my own experience weeye ma wax meel kale aan ka keenay marka waxaan rabaa si daacad insha Allah kugu sheegay adigana aad ka ilaalinaysid inta ku jidhay safarkaaga asaastaanka project ama shirkad cusub aad rabto inaad hadasho dabcan qalad badan baa jooga dhalinyaro badan oo ganacsi bilowda jirto meel fiican ayaga maray hadana salaan ka dhacaano waxa way businesskooda u shaqeyn waaye marka waxaan rabaa waxyaalaha iska ilaaliyo inta ganacsada tahay inaan halkan saaxiibayaal aan kugula shargalayo saaxiibayaal magacayga waa Geela Bashir YouTube channel-kan sidoo kale Facebook kan waxa uu helaa kaliya 3 qodob online business-ka baan uga hadlaa finance-ga iyo sidoo kale waxa uga hadlaa mindset-ka ammaanka haddii aad jeceshahay saaxiibayaal 3 qodob why not ku soo biir page-keena sidoo kale soo subscribe kala YouTube channel-keena si aad u noqotid dadka ugu horeeya ka faa'iideysto waxaan meesha ku soo gudbino qodobkeena koowaad saaxiibayaal waxa way inay heshin niche dad badan oo markan Zoom ka la galiyo kala ama si kale isku wareysano mar walba waxaan ka dareemaa in waxa way qofku uu ku wareersan yahay wuxuu bilaabi lahaa aniga kuma sheegi karo waxa bilaabi kartay sidoo kale qof kale kuma sheegi laakiin adiga rabaa in aad soo heshid oo shaqada adiga laga rabo soo kale marka dhimisay high school-ka wax xustaa 2014 waa dhimay high school-ka waxyaalaha ma taqaana dhowr jeer aan waxa way magaalada gaalka inuu joogo aan shir u aaday macallimiinta aan la tashan jiray waa career-kayga waxa way marka bilaabay jaamacadda aan u aaday dalka Malaysia marka waxa xustaa seminaar badan oo magaalada ka dhacay baa markaas ka qayb gali jiray waayo waxa maqlay hadduu career ka halaabo waxa laga yaabaa inaad waqti badan aad ilaa dareemka dhaday arday 4 sano 5 sano ilaa 3 sano baa lagu dhigtaa bachelorka haddii aad meel cidla ah waxa soo baranaysay oo hadhow career-kii aad passion ku ahayn ama aad ku fiicneen waxa dareemaysaa wax badan inay ka dhiman yihiin marka dareenkaas aad dareemaysa xilliga waxa way high school-ka aad dhimaysay mid la mid ah raba inay hadda dareento waayo marka ganacsi bilaawaysid hadduu ka halaabo ama meel khaldan aad iska aad waxa laga yaabaa energy badan iyo waqti badan waxa way aad gelisay inuu noqdo waxa way meel ka qasaartay marka nuxurka ama niishka waa waxa u horeeya la rabaa saaxiib qofka ganacsadaha inuu doorto maxaa dadka kugu baranaya brand baa la sidoo kale haddii aad ku dhaw afka luqadda brandkaaga muxuu noqonayaa maxaa jeceshaadka inuu kugu bartaan ka soo qaad haddii aad qof ganacsada ah ka war aad siyaasad ka sheekaysid social media ama si kalaba aan ku noqoto siyaasadda isma keenaysa halka waxa ka dhacayo contradiction ba ka dhacayo waa wax ma taqaana isqalaaf iyo maralba marka waxa laga rabaa saaxiib inay hesho nuxur sidee marka ku heli kara nuxurka waa su'aal fiican nuxurka aniga waxaan misan qofka inuu ka heli karo passionkiisa waxa jeceshahay wuxuu inay noqdaan way haddii aad jeceshahay forex iyo cilmi noocaas dabcan nuxurkaaga wuxuu noqonayaa niche-kaaga forex waa inaan business noocaas bilowda haddii aad jeceshahay accounting wax noocaas waa bilaabi karaa haddii aad inaan macallin noqdo koorsooyin gadid dabcan waa inaad ku dadaashaa sida mataqaana macallin aad ku noqon lahayd askaga diyaarin lahayd mataqaana sida loo hadlo sida waxa way macallimada online-ka ka caawinayda kala muuqaal samaynta haddii aad ku fiicanta editing-ka haddii aad ku fiicanta graphic design-ka haddii aad ku fiicanta web design-ka haddii aad ku fiicanta adiga waa inaad nuxur marka hore dooratid nuxurkaasna waa inaad jeceshahay marka qabtay waxa xustaa nuxurada ugu horeeyay aan sameeyay waxa kamid ah blogging-ka way blogging-ka article inaan qoro runtii waxa way dad bay ku adagtay laakiin aniga waxaan kamid ah dadka ilaa hadda ku raaxaysta inaan maqaal qoro aan waxa way ka faa'iideysto way marka niche-ka adiga aad jeceshahay waa maxay sifa aad u fahantay aniga Geela Bashir ahaan dabcan waxaan filayaa haddii aad muuqaalada hore soo daawan jirtay inaad brandkayga taqaanid aniga waxaan ka hadlaa online business-ka marka brandkayga nuxurkayga wuxuu noqonayaa online business way adiga muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa dadka fitness-ka iyo nutrition-ka iyo gym ku jiro business noocaas inuu bilaa protein iyo dadka mataqaana training iyo cuntada ka hagaajiyo business la galo service noocaas bixiyo marka adeeg ugu xiranta marka qodobka u horeeya waxa weeye brandka inaad iska hagaajisid nuxurka waayo
dadka waxa kugu baraya wax noocaas ogowna marka cabaar ku soo dhex jidha filligan dadka way aaminayaan oo aaminaada marka iyo trustigaasi ina inta boon noqoto ba ku fudaanayso likability iyo trust ba meesha imaanayso taasoo dadka ee filligaas ay ku daba fariisanayaan surface-kii adiga marka aad bixinaysid ee adiga marka khabiirhaan kaaga dambeynaya markaas ganacsiga ku horgeli doona saaxiib qodobkeena waxa weeye show your work tabcan book baa laga qoray inta kaliya hadda aan ku sheegay book dhan waxa jira la show your work soo bandhig shaqadaada dabcan hadii de nuxurka waa taqaan hadii aad luuqa gashid cid ka ogaanaysa malaha saaxiib maanta waxa lagu jira duniya digital baa lagu jira hadda anoo xafiiska hadda iska fadhiyo muuqaalka wax laga yaabaa ina waxa way xaafadada aad ku daawanaysa ama meel kale shaqada aad ku daawanaysa marka waa ina soo bandhigtaa surface-ka iyo priority aad qabanaysid sidee marka loo soo bandhigaa waa su'aasha ugu horeysa weeye business-ka u horeeyay aan bilaabay baan kaaga sheekeynaya waxa way taariikha intaan social media soo gelin sababta ay u kalafteen social media soo gala aan ku sheego saaxiib 2020 waxa bilaabay ganacsigayga igu horeeyay laakiin uu iga qaldamay mar dambe ogaan doonaa inuu xilliga aan ku qaldana wuxuu ahaa ganacsigaas waxaan soo iibiyay saliid la dhaho Neo Hair Lotion oo saliida bidaarta marsadana waayo halkaan aan jooga Belgium dadka Jarmalka joogay wadamada qurbaha inta Yurubta aan joogay dhawaayo kale aad ba ugu baahnayeen saliidaas oo markaasna training bay ahayd marka aniga markaas online waa iskaga fiicnaa laakiin wax social media ma lahayn waxaan go'aansaday marka aniga dhalinyaro kala asxaabta lacag ka aruuriyay ina Alibaba aan ka dalbay waxa weeye alaabta saliidaas waxa liikan guriga ayadoo 100 xaba baa liikan marka waa iibin jiray marka waxay noqotay iibitaankii in aan dhaafin waayo qatan xabo waa dhaafin waayo markaas existing follower-kayga Instagram Facebook iga xirnaa inta Europe joogto kaliya baa ka iibin jiray markaas intaas ee dhaafi weeyda waxa sidii waxaan ku dhaqaajin karnaa waxay noqotay inaan raadiyo dhalinyar ku jira Facebook-ga Snapchat-ka aan dooniyo iyo xaysiyo priority-ga qof kasta wuxuu inuu $100 keen $150 keen si aan ku waxaysan alaabtada post-ka aan kugu soo dhigay almost faa'iido aan ka raadinay intaas ahayd waa meeshaas marka aniga aan go'aansanay marka why aan aniga u sameeysan karin social media platform-ka maanta YouTube waa free TikTok waa free Facebook waa free account ka sameyn kara service-ka priority-ga waa sameyn kara markaas marka waxaan bilaabay waxa loo yaqaan inaan ku soo biiro ganacsiga online business waliba xilliga wax iibin jiray physical priority waa saliidada laakiin marka wax uu wareeg wax ka fudud oo ah digital priority in iibiyo sida mataqaana service aan bixino shirkadda warisan aan furay koorsooyin macallinimo mataqaana aan sameynay zoom sessions aan sameynay iyo talooyin markaas aan wax u wareegay saaxiib waxyaalaha digital priority maxaa ka wada marka saaxiib inta kugu sheegay marka aad inaad ganacsi bilowday number 1 waxa rabaa si free ah inaad ku soo gashid social media free tutorial inaad bixisa laga rabo ani markaan ganacsi bilaabayay dabcan YouTube-kayga wuxuu jiray 7 bilood ilaa 8 bilood buu jiray oo markasta aan ka soo sameynay muuqaal fira blog ba qoriyo maalin kasta sidoo kale muuqaal baan duubay mataqaana week laba jeer 7 bilood markaan duubayay dadkii ugu xirnaa ay aamineen subscribe siiyeen arkeen inaan waxaan ku dhex jiro aan fahamsanahay markaas aan bilaab inaan casharo bixiyo Zoom koorsooyin aan duubo service kalena aan sameeyo marka saaxiib yaal dad badan ba wax isku qodna wax loo yaqaan lead iyo customer runtii aad buu kala duwan business ka markuu sheegay oo aan saliid bilaabay waa ku khaldana waayo mar isla markii priority ba keenay anna wax community lahayn anna audience lahayn ba waxa keenay waxa loo yaqaan product marka waxa noqon xasiis in lacag badan kaaga baxdo laakiin hadda waxa ii fududaatay in business kasta hadda aasoo kale in si fudud dadka uga adeegtaan maadaama community ay ugu xiran tahay marka sifooyinka client badan ku heli kara waxa laga rabaa inta cusub tahay waxba ha iibinin waxa laga rabaa service iyo priority ay bixinaysa in bulshada u soo baratid soo waxa waan ka dhaa seminar baad qaban ka dhaa waxaan qaban ka dhaa mataqaana webinar live baad qaban ka dhalinyarada linka u dir soo gala leedahay wixii adoo ka iibinayo kale waa fahansiinaysaa qofka sida adoo ka iibiyo kale u fahansiinaysaa qofka markuu arko waxa way value qiimahaaga mataqaana priority say wax u geeyay markuu arko uu ka iibsanayo hadhow service-kii rabtayna uu ka gadanaya marka taar marka lead baa la dhahaa qofka mataqaana waa la soo xirigeliyaa soo kale muuqaalada soo kale social media webinars baa qabanaysaa seminars kala duwan baad qabanaysaa oo physical ah waxa weeye Zoom baa mataqaana markaas la galaysaa blogging baa soo qortay maqaalo soo qoraysaa marka qofka mar qiimaha arko uu ka adeegaya customer buu ku noqon laakiin marka qofka adoona ku aqoonin de waxa tahay aqoon baranti aqoon customer da kula soo boodid qofka ina laga adeegay marka business-da waxa ku fashilmay waxa kamid ah isla markii customer buu raaso hadda waxa weeye aan arag shaqadiisa marka hadii video editor tahay hadii graphic mataqaan design hadii web designer tahay hadii macallin tahay hadii waqti social media soo gal tutorial bixi badan value badan bixi bilooyin bixi markaas follow badan baa subscribe baa waliba reason bay ku siinayaan dadkaasi waxa ay ka faa'iidaan potential customer waxa loo baa ku noqonaya marka waa mid ugu muhiimsan laftigeed in ay ogaataan baa isla markii barota la soo gali community dis lead ahaan dadka u soo xaray customer bay ku noqonayaan mustaqbalka saaxiib al qodobkeena saxad wuxuu noqonayaa priority-ga iyo service-ka aad bixisid in aad kala qaybisid Starbucks baa waxa weeye theory-gan waxa weeye selling-ka art of selling-ka aan runtii ku ah
Starbucks markaa soo gashid kafeega dadka ka gato kale waa yaqaanaan midka u yar small baa lahaa kan dhaca waxaa la medium kan u weyn waxaa la tall baa lahaa mostly dadka waxay gataan marka kan medium ka eegta hatta aniga aan kula hadlay kan medium wataa maxaa way marka waa same product waa shaahi baa lagu dhigay laakiin waa mataqaana waa laga macaanayo kala baan runtii dhigi karaa shaahaas dhadhankiisa saaxiib waa isku mid laakiin wuu kala badan yahay waxa dhan saaxiib psychology of selling bay dhahaan ina waxa waa dadkii aad weerarsid weeyay hatta maqaayadaha dharka hadda adduunka meeqso marka waxa isku dayda service-ka aad bixinaysa in aad kala jajabisid qiimihii aad kala duduudid mid raqiisa mid dhaxa iyo mid qaali ah mostly kan dadka recommended hatta kulli hada taawasida marka domainka aad iibsanayso hostka iyo namecheap kala GoDaddy imo midka oo horeeya waa Starbucks kuleeyihiin kan dhaxana waxa la mataqaana waa mid iska business kan kale waa enterprise kan dhax waxa ku dul qoran recommended waa kugu la talinayna mostly sale ku badan kaas oo kala ah laakiin hadii hal product ama hal service akeenta qofka wuu nici karaa laakiin qofka markuu nooc productigaas kiisa labaad oo ka qaalisan buu arkaya mid kale ka qaalisan buu arkaya qof maskaxda bini aadamka marka wajirada dabaqaysa way wareeraysaa marka wuxuu isku dayaa hadduu kan nacay inuu kan labaad qaato marka saxaad qaato mustari kalaad baqata marka waxa isku dayaa servicesada aad bixinaysa inaad balaarasid soo hal product haddana isku day inaad su'aalo kale consulting baad bixisaa mid kale waxa ka dhigay mataqaana $20 ka dhig $30 ka dhig ilaa mataqaana dhowr meel aad ku fikiraysa kan labaad waxa ka dhigay mataqaana saacad ka dhig meesha 20 ka ahaana $50 waxa ka dhig service waxa ka dheeraada ka dhig mataqaana inaad bixiso su'aalo kale course ka course sagaalaad ka dhig kan labaad zoom one waxa qofka si toos ah runtii ula hadlaysa soo kaasoo kale $50 waad ka dhigi kartaa saacadaas in ka dhig kan u dambeeya deerta waxa ka dhigi kartaa 4 kulan oo kale bishaas oo week hal mar oo kale aslan 100 baad ka dhigi kartaa marka 29 konton 100 baad ka dhigi kartaa soo master qofka ku rabo buu dooreen dad baan jecel in koorsooyinka si muuqaalo duuban waxa way gataan laakiin jecel in toos ku arkaan oo kula kulmaan su'aalo marka ay ku weydiiyaan marka waxa ka wada surface iyo product aad waxa isku dayay in kala jabisid small things aad dhigtid qiimaha kala duwid qof marka soo dooq u rabo ciyaaro runtii waxa way art of selling baa lahaa halka kuma soo koobi kara laakiin wali badan baa laga gaaray business adduunka runtii aad buu isticmaalaa qodobkan afraad saaxib baa waxa waa value-ga mataqaana brandkaaga values you need to protect it at all costs badahan waxa way brandkaaga waa inaad si kasta aad u ilaalin kartid weey dabcan qiimaha brandka waa inaad ilaalin kartaa marka waxa way ganacsiga marketingkiisa oo kale waxa way information aad gudbinaysid wax kasta ay noqdaan wax xaqiiqo ah dadka runtii waxa way aad ugu sabartay baa runtii laga helo aniga dabcan hadda skills baan gadaa koorsooyin baan gadaa koorsada bisha ma soo saaray mataqaana cryptocurrency ah hadda bisha waa mataqaana 9 bari weeye 4 bari lifetime in ku dhimo mataqaana 150 arday ka badan baa runtii iibsaday koorsada marka aniga xilliga u baahnaa cryptocurrency 2020 marka bilaaway hadii aan heli lahaa iyadoo af Soomaaliya saas oo kale ah wallahi waa iibsan lahaa dabcan marka tabtii kale way marka adiga service aad bixinaysa iyo product aad bixinaysa marka adiga iibsan lahayd adoo customer soo qaadmay iibsan hadii noqosha dadku waa ka iibin karaa tusaale kale koorsooyinka aad albaabo ka dhalin marka alaab ku iibsanayaan waxa dhaca alaab raqiis mar hela aad u jaban waxa dhaca product adiga ma iibsan lahayd ma ay kulii ma waxa dhila marka bedel mid yar oo ka qaalisan gabo hadaad lacagta qaaliye product-ga iyo value marka brandkaaga wax dhaawac waxa kamid ah waa value-ga shirkadaada isku day product-da ay iibinaysid ama service aad bixinaysid in u delivery gareysid sida uu quality sareeyo reer galbeedkan wax dhaca saxda customer is always right bay dhan customer marka soo soo hatta customer ka duu qaldan yahay heer waxa la mariyaa saxab yar product-da waddanka laga iibsado 20 bari kadib mutaqana mari guarantee back in iska celin kari baa la maraya dad waxa jira alaabta inta ku soo labistaan dharka kala zaaro kala arkeen in yara tiktok ma qartay saaro laba shay ka soo gatay xaflad buu ka yar Soomaali arrinta aad deega yaabiyay uu ku soo labistay xaflad buu ku aaday uu ku soo baashaalay dharkii uu soo laalaabay laakiin muusa ka rasiidka muusa ka jarin koodka da ka jirta mataqaana waxa levelkaas laga ma xiliyo alaabta uu soo laabay dukaanka uu taga zaara qaybta waxa uu taga sixbal customer support alaabta waa laga cishay lacagtiisa waa loo soo cishay macna adduunka waxa ilaalinaya brandka shirkadda ilaalinaya marka adiga waxa isku daydaa surface-kaaga customer-kaaga hadduu xitaa mataqaana wax ka mataqabta inaad isku daydid at all costs mataqaana xalisid qofka hadduu xitaa wixii u bogwa inaad wax kale ugu dirtid xitaa adiga lacag kaaga baxdo marka value-ga business-kaaga inaad ilaaliso laga rabaa soomiina arag saxa business-yo waxa way 6 bilood ama sanad gudaha hawada ku tagay oo la yaabay maasha Allah business-ka uu kala kacay sanadkii labaadna business oo dhulka ka baxay oo la yiri business-ka uu shaqeeyo waxa sabab ah brandkiisa ilaalin marka lacag sameynta ka dhigan hadafka koowaad ee hadafka koowaad wax ka dhigata inaad wax value ah soo gudbisid in mataqaana problem taagan solution u noqotid in shirkadda mataqaana innovation ee leedahay